guud ahaan degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe sida magaalada Jowhar, Balcad, Mahadaay, Warshiiq, Cadalle iyo degmooyin kale oo dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa laga dareemayaa u diyaar garowga munaasabadda Ciidul Fidriga oo maalmo kooban ay ka harsan tahay. Suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta kuwa mashquula iyadoona dadka ay yihiin kuwa si weyn ugu dukaamaysanaya goobaha lagu iibiyo dharka iyo weliba macmacaanka. qaabka dadka ay u ganacsanayaan suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle iyadoo dadka ay yihiin hadda kuwa diyaar garowgii ugu dambeeyay ugu jira munaasabadda Ciidul Fidriga. Hadda waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo maanta ka warbixiyay u diyaar garowga ku aadan munaasabadda Ciidul Fidriga ee fowda inoo soo haysa. maalmahan u dhibay waa faraxsanahay subhanahu wa ta'ala. ciid hore maxay ku kala dugan yihiin waxyaabo barbar ku yihiin ciid hore waa way qalab oo gudkan badan qaar ma lahayn laga ciidan si weyn loo keenay ilmaha ciid loo keenay qaarkood jambal yar loo keenay aad u faraxsan badan ciid waa ciid yani ma aragtay farxadeeda yani ma aragtay dadku aad ay u sugi laayihiin sidaas darteed ciidan sida aan ognahay caruurta iyo yani cirowda intaba waa ciidisaan marka aad iyo aad ay u wanaagsan tahay wax kadashada yani ma aragtay u diyaar galowga ciidan waxaan ugu talagalnay yani dhaqaale fiican aan ka helno anagana waxaan soo adeegnay badeecad badan oo fashion oo Indonesia iyo China iyo Taiwan iyo Bangkok laga keenay waxaan leenahay soo dhawaada dhalinyarada odayaasha caruurta haweenka gabdhaha maanta abaaraa jirta masaakiinta loo kaalmeyn dadkii dhaamo ما شاء الله ciidan waa ciid oo ummadda horta maalintii koodii soonkiiba ay hal maalin oo khilaaf aan lahayn ay wada soomeen haddana waxaan rajaynayaa maalinta ciidda ay noqonayso muslimiinta iyadoo khilaafkii wax macnaha ismaan dhaafsan ay lahayn inay macnaha ciid wanaagsan ay ku ciidi doonaan ciidan iyo ciidii hore waxay ku kala duwan yihiin ciidaha hore inta badanba dadka khilaaf ayaa dhex ooli jiray maalmaha oo soonka laba beri iyo maalin macnaha waxba u dhaxay jiray oo dadku waa macnaha different u dhaxay jiray kala duwan wada fikradooda laakiin waxaan malaysanahay mid hadda kale isku aragtay in macnaha dadku hal maalin u wada soomeen isku marna ay yacni mataqaanaa wada ciidi doonaan ummadda muslimiinta oo bisha barakaysa Allah oo soonka hadda ku soo wada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaah baa mahad iskale aad iyo aad ayaad u mahadsantahay adigana saxafigan oo ka soo qayb galay inuu macnaha oo dhanka ciida dadka oo ka wareysto ciida markaan warkaas iyo ciida aad iyo aad baa okay waaye shaqo waa iska jirtaa horta wuxuu ilaahay keeno waan haysanaa ma sha Allah waa muduna adeeg wallahi ciidani ciidii hore waxay ku kala duwan yihiin ciidii hore waxa soo jiray dhar oo macnaha la dhahayo dameer faruud la dhahayo soo jiray laakiin hadda ciidani dhar oo cusub xataa ma la soo saarin laakiin dhar oo original ah waa la iska keenay maadaama oo dhowr waxaad aan suuqa ka maqlaayay farmaajo dhar ayuu la sheegay iyo cankatoosh dharayaal la sheegay waa aragnay laakiin intaas ciidan dharkaas baan aragnay marka waa kaasas baa jirto anagana wixii oo ilaah noogu talagalay iska helino macnino waa iska tulanoonay min ciida waa ciid wanaagsan dharka si fiican isku gudmooya yad iyo ciyaalka hawar oday gabar كل والعيد عيدنا سيفي عن أيا فرحات هل بري أيا لتصومي هل بري أيا لتفرع عيدا خلاص مله ciidan ayaa waxa ay kaga duwan tahay ciidihii ayna soo dhaafnay shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle xilli ay ka mid noqdeen shacabka ku nool maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya iyadoona magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle hadda uu diyaar garowga munaasabadda Ciidul Fidriga si weyn looga dareemayo